waxba duqeyna maaha diyaaradihii muxuu ahaay droniska ahaayo 7 xaba bay soo kacayeen 7diiba dhulka la soo dhigay 4 nin baa dhaawac sahlan gaaray 7diina waa la soo riday marka waa iska xaalad argagixisay iyo wadalda iyaga oo dhan baa iska argagixisay Soomaa ama diyaaradaha soo kacayeen ama maraakiib ha soo maluugeen wuxuun bay soo maluugayaan laakiin waxa deer muxuu ahaa la sheegi karo ma aha iyagoo un baa khasaare qabo khasaaradina 7diiba dhulka la soo dhigay awal intii laga soo riday waa ogeyd marka taasi wax weyn ma aha marka xagee ku sugan yihiin oo ay diyaaradaha ka soo kiciyeen waa agagaasi kulle ciidanku hadda waa og yahay meesha ku jiraan intelligence-ga ciidanku waa iyo saxanka ciidanku waa soo cadeeyay marka wax weyn hadeer oo muxuu ahaayay la faahfaahiyo maaha waana la og yahay meesha ku jiraan insha Allahuna ciidanku tabixiisa muxuu ahaayay ciidan buu isticmaalaya hadii ilaahay waayahay hadda wajigii labaad howlgalka bilaabanaya maalmahan ilaa hadda ciidanka dadku sida ay xogta ula socdaan wax howlgallada ma sameeynin bal faahfaahin naga sii qorshaha howlgallada iyo halka ay deegaanada kaga sugan yihiin adeer waxa weeye horta hadda ma bilaaban doono waa bilaabmay dagaalkii dhaweyd oo maalintii dhaweyd tabaan ugu horeysay wajigii labaad waa socdaa insha Allah muxuu ahaayay waxana waa la dhameystiraya xaaladuna waa fiican tahay meel fiican bay maraysaa insha Allah warshaha hadeer halkaas ay joogto muxuu ahaayay barnaamijka ciidanku public lagama sheego barnaamijka ciidanku waa wax iska kooban iyaga uun baa barnaamijkooda muxuu ahaayay istiraatiijiyada ay dagaalka ugu jira iyaga uun bay ku kooban tahay waayahay waxaa nagu maqaalaa in firxadkooda dhankaas iyo reer guuraaga ay soo sheegayeen oo qaybo kamid ah deegaano miyiga ay joogaan ay tageen oo ay kula hadleen maxaa kamid ah deegaanadaas ay hadda joogaan deegaamadu waa badan yihiin firxadku waa badan yahay nimanka isdhiibaya shalay mid baa isdhiibay tunisiyaana oo hadii ilaahay ku hooyahay dhaawici maalinta dhaweyd kamid ahaa waa la dilay oo waxa ku xiraa qarax baa ku xiraa marka isdhiibidaas xeelad bay ahayd xeeladaasna waa la gartay ciidamadu waa la dilay kuwa muxuu ahaay meena dhigayo oo Soomaaliya waa la qabtay oo waa la hayaa firxadku meel walba waa lagu sheegaya marka ciidan jabay weeye ciidan jabayna waxa weeye meel walba waa taagan yihiin marka taas waxa deer dhibaato oo hadda ma taqaanay la sheego ma waa la maleynaya inay saa u jabaayaan hadii ilaahay ma ciidanku hada qorsho waa weyn yahay ilaa 300 kilomitir bay ku dhowdahay waana socotaa hadii ilaahay arrintaasina ciidanku waxa weeye ciidamada jooga meel kasta oo la qabto ciidan baa lagu reebaya hadii ilaahay aad bay ciidanku aad baa ciidanku moralkiisu fiican yahay dadkooda garab istaagan iyo dalkoodii cadowga ku soo duulay ee dhibaato badan u geysteen oo dhaawac badan u geysteen aad bay ciidanku marka moralkiisu fiican yahay dadweynaha ugu mahad celinayaan reer Puntland dal iyo dibadba madaxdooda ugu mahad celinayaan ugu horeeyo madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Deni oo isla markaasna taliyaha ciidamada ugu mahad celinayaan hogaamintiisa suuban iyo sidii muxuu ahaayay ciidanka ugu heelan yahay oo ciidanka muxuu ahaayay dhaawacooda iyo dayeelkooda ugu taagay aad bay ugu mahad celinayaan adeer waaya ugu dambeyntii istiraatiiji ahaan calmiskaad meelaha ay idii harsan oo ay kaga sugan yihiin kooxda Daacish wahalka afayeen waa meelo badan weeye meelo badan kullina waa loo calaamadsan yihiin insha Allah bacda muxuu ahaayay howlgalkaas baan insha Allah idin sheegi doona markay howlgalku marka laba sheego meelo badan oo noo qabsoon baa jira hadii ilaahay idmo waayahay dhinaca badda oo kale waxa uga soo degi jiray hubka hadda dad badan waxay sheegaan xogaan helnay in wali uu saadka uu soo gaaro dad badan waxay isweydiinayaan marka sidee buu Daacish hadii la jabiyay saadka iyo cuntada iyo raashinka ay ku soo gaaraan waxba ma jiraan bad iyo bariba waa ka xiran yahay bad iyo bariba waa ka xiran yahay marka taas waxa weeye waa kuturkuteen weeye wax soo gaaraa ma jiraan meelay biyaha lahaa iyo saldhigyadii ugu muhiimsanaana waa laga qabsaday
marka taas waxa weeye guul badan baa halkaa ka jira marka taas waxa weeye waa propaganda waxaas dadku fidanayaan. ma ogtahay in internetka shirkadda Golis ay ku keentay uu yahay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaasoo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka go'in internetku. shirkadda Golis waxay diyaar kula tahay inay ku geliso gurigaaga, xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan. garaac 181 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkan aad kula xiriirtid mar walba.